حلبانك الله دورتيه دوكي بقرتو يديو تشكيلة صاريو صوردو كران عفيمات قبيو دعاني كوكو صوحلي waxaa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland si ballaaran loogu soo dhaweeyay Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed Cabdi Cali oo ka mid noqonaya salaadiinta dhaqanka ee beelaha Soomaaliland boqolaal isugu jira dadweynaha ku dhaqan caasimadda salaadiin cuqaal waxgarad siyaasiyiin xildhibaano indheergarad dadweyne kale oo isugu jira aqoonyahan dhalinyar iyo haween ayaa maanta isugu soo biyashubtay garoonka diyaaraduhu ka duulaan kana soo degaan cigaale magaalada Hargeysa waxaana diyaaradii sidee Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed markii ay soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha Hargeysa qaybta VIP-da kaga hortagay indheergarad aqoonyahan xildhibaano iyo salaadiin isugu jira waxaana loo soo galbiyay qaybtii ay dadweynuhu ku sugayeen isagoona Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed mid u gacan qaaday dadweynihii halkaasi isugu soo baxay isla markaasna u diyaaraha soo dhaweyntiisa qaar ka mid ah salaadiinta waaweyn ee beelaha bariga Burco iyo galbeedka gobolka Sanaag madax dhaqameed iyo siyaasiyiin kale oo tiro badan ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta maanta loo sameeyay Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed waana kuwan salaadiinta cuqaasha waxgaradka indheergaradka xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee goobtaasi ka hadlay waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed Cabdi Cali Suldaan waxa halkan kuugu diyaara cuntubyo ka mid ah dadweynahaaga oo leh salaadiintii waxgaradkii haweenweynihii dhalinyaradii xildhibaanadii wasiiradii dhalinyaradii ayaa halkan maanta kugu soo dhaweynaya oo kuugu diyaara ilaa iyo wiigan oo dhanna diyaar garoobayay siday kuugu soo dhaweeyaan waa suldaankii Barre Abdiraxmaan sida boorarka ugu qoran aragtaan waa ku soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu kugu soo dhaweynaynaa Suldaan Sharmaarke sida suldaankii iga horeeyayba oo ka dhawaajiyay ku soo dhawow dadkaagii shacibkaagii ehelkaagii oo aan cid ka maqani jirin Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed Cabdi Cali oo runtii nin weyn oo miisaan leh dhalay ilaahay ha u naxariisto isaga Suldaan Caraba insha Allah bismillaah kariim waxaanu rajaynaynaa inuu suldaankii buuxiyo kaalintoodii uu noqdo hawshiisina way noo dambaysaa maanta waa soo dhaweyntii dalkaagii iyo dadkaagii bad ku soo dhawaanaysaa suldaan waxaan ku leeyahay soo dhawow waa lagu sugayay waajibaad banaan inaad timaado boos noo banaan buu ahaa waa lagu sugayay dee dadkaagii halkan ku dhan yahay badankiisii waa joogaa waxaan leenahay hadalkiisii dee way noo dambaynayaa sidaa loo sheegay waynu gaari doonaa ku soo dhawow waxaan leenahay suldaan ku soo dhawow waddankaagii hooyo ku soo dhawow waxaa halkan kuugu diyaara sidaa la wada sheegay salaadiintii waxgaradkii iyo odayaashii siyaasiyiintii dhalinyaradii haweenkii cid waliba way joogtaa xildhibaanadii wasiiradii markaa ku soo dhawow waddankaagii ummadda aad arkaysaa dhamme adiga ay gacmo furan kugu soo dhaweynayaan hadalna meel baynu la tegi doonaayo dee hadda waxa weeye waa soo dhaweyntii garoonka cigaal laakiin xafladda meeshii aynu ugu talagalnay iyo hadal iyo goobaabo iyo wax isu sheegi iyo akhyaarnimo meel bay leedahay dee madashii aynu ugu talagalnay baynu la tegi doonaa insha Allahu tacaala biidnillaahi kariim suldaan markii hore soo dhawow baan leenahay mar labaadka beesha maanta suldaanka ku caleema saaraysa marka laga yimaado sandaladu marna waa iskoob kooban oo waa beesha ku dooratay marna waa iskoob ballaaran oo saa suldaanku u shaqeeyo oo waxaanu kaa rajaynaynaa inaad noqoto suldaan qaranka u shaqeeya oo qaran insha Allah taala suldaan aad iyo aad baan ku soo dhaweynaya ku soo dhawow caasimadii Soomaaliland Hargeysa insha Allah ilaa garaadagii ceelafayna ku sii raaci doonaa dee suldaan ku soo dhaweynaa xanuun sahlan soo dhawow suldaan looma kala hadhin saaka halkan waxa isugu yimi cid kasta oo muxuu ahaa bulshada mataleysa haday tahay salaadiinta muxuu ahaa beelaha habar jeclo iyo muxuu ahaa siyaasiyiintii dhalinyaradii iyo waxgaradkii kale halkan la isugu yimi waxaanu leenahay suldaan ku soo dhawow dalkaagii
iyo dadkaagii ku soo dhowow ku soo dhowow dalkaagii dal nabad ah barwaaqo ah nabadgelyo ah oo booskaagii kuu bannaan yahay lagaa sugayo inaad nabadgelyada ka qayb qaadatid ku soo dhowow baannu ku leenahay dalkaagii hooyo deegaan ballaadhan baad ka soo jeeddaa oo ilaa xiis ka bilaabma marka hoos loo sii dhaadhace somalilan la dhaafo ilaa iyo ku simanayaan baalidhaye aad baanu kuugu soo dhoweynaynaa deegaankaa ballaadhan hawl badan baa kolley ku sugaysa waxaa dhow lagaa rabaa inaad ilaa sool qorjabiyo buttaweyne iyo garanasa baa lagaa rabaa waxyaalo bar badan baa lagaa rabaa aad iyo aad baanu kuu soo dhoweynaynaa soo dhow suldaan waa sidaa ay kugu soo baxeen ayay niyadda kugu hayaan suldaanku boorarka waxaa ku qoran suldaanka barre abdiraxmaan suldaanka barre abdiraxmaan iyo abdiraxmiin weeye ilaa xiis saldanadiisu waa soconaysaa waxaanu leenahay soo dhowow suldaan sharma arke suldaan maxamed cabdi cali waxaanu leenahay suldaan soo dhowow dalkaagii iyo dadkaagiiba ku soo dhowow waa lagu berber taagan yahay waxay la tahay halkan waa soo dhowaynuun meeshii wax layska odhanayo meeshii dardaaran yaallaa waa inoo dambaysaa haddii ilaahay idmo waxaanu leenahay suldaan soo dhowow gacmo furan iyo qalbi furan baanu ku soo dhowaynaynaa dadweynaha halkan isugu yimi rag iyo dumarkaba leh waxay u taagan yihiin saaka u taagan yihiin suldaan soo dhowayntaada maanta waxaanu halkan u taagannahay soo dhowaynta suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali waxaanu leenahay suldaan soo dhowow gacmo furan weji furan dadkaagii dalkaagii oo ku wada taagan suldaan sharmaarke suldaan maxamed waa suldaan mutacalin ma waxaan u rajaynayaa inuu wax badan u qaban doono maxaa lahday beesha oo horumar gaadhsiin doono oo isku duubi doono oo isku wadi doono waxaan rajaynayaa inaan barwaaqo iyo horumar iyo nabad badan maxay noo horseedi doono suldaan sharmaarke suldaan maxamed cabdi cali oo isagu u mahad celinaya dadweynihii goobtaasi ku soo dhoweynayay ayaa yidhi hadal kuma soo koobi karo runtii sidaa sharafta ay soo dhaweyseen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laa yashkur innaas laa yashkur allah qofka aan dadka u shukrin ilaahay uma shukriyo aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mana koobi karo runtii sida ay soo dhaweyseen waxaan idinku ducaynaa inaan insha allah meel ka wanaagsan insha allah aan ku kulanno jannada insha allah suldaan sharmaarke suldaan maxamed ayaa ka mid noqonaya salaadiinta dhaqanka ee beelaha somalilan waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda lagu caleemo saaro degmada faca weyn ee garadag ee galbeedka gobolka sanaaga zakariya sudeysi telefishinka sahan hargeysa